waxaan inaan goyno. wuxuu yahay hadalka uu ka dhawaajiyey madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen oo uu ka carooday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. maxaa ka jira in koonfur galbeed Soomaaliya ay ku dhawaaqeen go'aan siyaasadeed? maxay tahay sababta ku khaliftay in Laftagareen uu diido inuu amar ka qaato dowladda dhexe ee uu madaxda ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud? warbixintan ayaan kaga hadli doonaa si degan u daawo. intaan guda galin barnaamijkeena waxaan daawada kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, sidoo kale gambaleelka aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. like saar muuqaalka si uu saaxiibo badan u gaaro. waad ku mahadsan tahay la joogistaada iyo weliba la jaanqaadkaaga. ku bilownay waxa uu hadal lama filaan ah ka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen. hadalkaasi oo ka xanaajiyay madaxda dowladda dhexe oo u horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa xilli uu khudbad u jeedinayay xubnaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo shacabka, isagoona ka qaybgalayay shirka la isugu yeeray dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, ayuu ku yiri maanta kadib ma rabno in la xukumo, aan ku xirnaano dowlad dhexe, aan ka amar qaadano madax kale. waa inaan inaga wax xukunnaa, aana noqonaa dad gooni u istaagsan iyagoo kaliyana isu taliya. ma qaadani doono in ay dowladda dhexe noo taliso ama aan ku xirnaano. waa inaan inaga wax qabsanaa, aana anaga talinaa. waxaa sidaas yiri madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen. hadalkuu ka dhawaajiyay Laftagareen ayaa waxaa ka xumaaday madaxda xubnaha ugu sareysa dowladda dhexe oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, maadaama hadalkaasi uu yahay hadal aan laga filayn madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen xilli uu ka qaybgalayay shirka la isugu yeeray dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo ajandihiisu ahaa sidii xal looga gaari lahaa khilaafaadka soo laabtay u dhexeeya dowladda dhexe iyo weliba kan maamul goboleedyada dalka. balse ilaa hadda ma jirto cid jawaab ka bixisay hadalkaasi ka soo yeeray Laftagareen. hadalka Laftagareen ayaa ku soo aadaya xilli ay jirto xiisad dagaal oo u dhexeysa dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, iyadoona shir degdeg ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isugu yeeray dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka si xal looga gaaro khilaafaadka soo laabtay u dhexeeya dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. si gaar ah koonfur galbeed Soomaaliya ayaa qabtay go'aasho ku saabsan dowladda dhexe, taasi oo ugu horeysay khilaafka Mukhtaar Roobow iyo Laftagareen ka dhexeeyay iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo uu Mukhtaar Roobow u magacaabay xilka wasiirnimo ee diinta awqaafta Soomaaliya. Mukhtaar Roobow ayaa hore waxa uu ka mid ahaa xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab, isagoona isku soo sharaxay xilka madaxnimo ee koonfur galbeed Soomaaliya xilligaas oo madaxnimada ku guuleystay Cabdicasiis Maxamed Laftagareen. ha yeeshee Roobow ayaa laga diiday inuu isku soo sharaxo xilkaasi maadaama uu ahaa nin dhawaan markaasi ka soo baxay ururka Al-Shabaab, taasi oo ku xumaaday Laftagareen. dhanka kale Laftagareen ayaa sheegay inuusan Mukhtaar Roobow iman karin koonfur galbeed Soomaaliya si kasta oo lagu magacaabo xil. waxaa arrintaasi ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud oo isku dayay inuu Roobow ka dejiyo koonfur galbeed Soomaaliya. ha yeeshee Laftagareen iyo madaxda dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa arrintaasi iska diiday, waxaana hadda Xasan Sheekh Maxamuud isku dayayaa inuu heshiis dhex dhigo Roobow iyo Laftagareen kadib shirka la isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid tahay koonfur galbeed Soomaaliya, Jubbaland, Puntland, Hirshabelle iyo Galmudug. shirkaasi ayaa ajandihiisa aan iraahday waxa uu yahay sidii xal looga gaari lahaa khilaafyada u dhexeeya dowladda dhexe iyo weliba kuwa maamul goboleedyada dalka. ha yeeshee madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa arrinkaasi iska diiday in isaga iyo weliba Mukhtaar Roobow heshiis la dhex dhigo maadaama ay ka dhexeyso colaad aad u weyn. Mukhtaar Roobow sidaan wada ognahay wuxuu hore uga mid ahaa xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxa uuna kadib kasoo bixistiisii Al-Shabaab isku soo sharaxay xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xilligaasi oo laga diiday inuu isku soo sharaxo xilkaasi. waxaana xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed Soomaaliya xilligaasi ku guuleystay Cabdicasiis Maxamed Laftagareen oo haatan ah madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. ha yeeshee muddo dheer uu xirnaa xilligii dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,
waxaa hadda mukhtaar robow xabsiga kasoo daayay dowladda cusub oo uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud isagoona u magacaabay xilka wasiirnimo ee diinta iyo awqaafta dalka Soomaaliya isagoona arrintaasi ay dad badan oo ka tirsan dowladda iyo waliba dadka shacabka Soomaaliyeed ka muujiyeen kasoo horjeesasho taasi oo ay ku magacaabeen inuusan mukhtaar robow u qalmin xilkani hayeeshee madaxweynaha dalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa carabka ku adkeeyay in magacaabista robow uu uga gal leeyahay sidii xal looga gaari lahaa soo dabarjarista ururka al-shabaab waa tahay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo afmarayaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen dunida media haddii ay tahay marka kugu horeysa channelka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto sidoo kale gambaleelka aad furto si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto si uu saaxiibo badan u gaaro una sii sheer garay saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba tan guud ahaan caalamka halkan ayaad ka daawan doontaa wax walba oo ka cusub siyaasadda waad ku mahadsan tahay la joogistaadii weliba la jaanqaadkaaga